sideetan u dhowdahay musharax Ameerika ku soo baxo qabashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliyeed. Musharax Ameerika ayaa dhanka kale noqonaya musharaxii ugu horeeyay ee door muuqda oo lixaad leh siiya dadka baahiyaha gaarka qaba sida ka dheehan kara ololihiisa siyaasadeed. Basura. xildhibaanada Soomaaliya jaaniska hala siiyo Maxamed Cali Ameerika si uu dadka Soomaaliyeed uga samata bixisho dhibaatada iyo abaaraha sanadkan u daahsaday. Waa ku mahadsantihiin. بسم الله. مدنيا يمرويبا دمانتين مدن مشرح مدحوينه قلنا نافذ قرن الصومالية دمانتين وادي سلامية سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبارك صحافة مدن مشرح مدحوينه حقبت كذا حقيقة أنا ولا صغرى magacayda ku sheegay waa Maxamed Khaliif Dumar
gudoomiyaha midowga noolayaasha Soomaaliyeed ahna maamulaha dugsiga noolayaasha nasiib sanca karaan anu waxaan wax ka mid ahay dadkii wax kusoo bartay dalka Kenya oo safaaradda u fadhiday dhowr marna safaaradda warqad baan kasoo raadsaday si fudud waan ku helay waxqabadkaada waxaan saasaan ku socdaa marka mudanayaasha baarlamaanka hadda jira waxaa ku jira rag dhalinyaro aqoon-yahan oo la socda waxqabadkaada oo og waxaad tahay iyo waxaad gashaba marka boqolkiiba boqol aan waxaan saadaalinaha inaad madaxweynaha tahay saacaddan waxay ka bilowdo waayo waxaad ku haysataa aqlibiyad cod ah dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa meesha la keenay oo og waxa qofka bani'aadamka uu gala taas markaan ka soo baxa su'aal muhiim ah ayaan rabay inaan ku weydiiyo badan aan ku riyo oo qalbigay ku jirtay madaxweynaha dalka Kenya hadda kahor waan weydiiyey waa maartay Moi Kibaki hadda waxaan ku faraxsanahay musharax madaxweyne oo dalka Soomaaliya raba inuu qabto inuu maanta ag fadhiyo meesha awal hore musharax madaxweyne oo dalal kale aan soo ag fadhiisi jirin marka anigu burburkii iyo dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa waxay ugu qasabtay inaan Kenya dalkan waxay leedahay wasaaradda waxbarasho wasaaradda waxbarashada ma laha system oo dadkan baahida gaarka qaba buuxiyo ha ahaato kuwa maqalka la ha ahaato kuwa aragga la qof Soomaali oo shakhsi oo meel wax u furay wax ma buuxin karto ama ma kaafi karto baahida dalkan loo qabo waxaa ka mid ah waxbarashada in laga dhigo in oo maarta laga dhiso dadka aragga la iyo dadka maqalka la iyo dadka wheelchair ku socda xubnaha la baahida gaarka qaba maxaa kaaga qorshe ah wasaaradda waxbarashada qaasatan antaas aad aan u taxagelna maadaama macallin Soomaaliyeed dhibaatadaas aan ku sheegay aan isoo martay marka dalka waxbarashada maxaa kaaga qorsheysan see wax u bedeli lahayd ama maartay 4.5 aan iskiga keen lahaa marka su-aashayda intaas waa laakiin hal su-aal ayaan la socotaan ama se la socdo musharax madaxweynaha allah ku guuleeyo madaxweynenimadeed dalkeena wuxuu soo maray burbur fara badan oo mid maal iyo mid dabeed kale waxaan maleynayaa xilliyadii hore ee kacaanka waxaa lagu qiyaasi jiray dadka naafada boqolkiiba 8 ilaa 10 maantana waxay marayaan 20 iyo abad waxyaabahaasna waxaa keenay dagaalka sokeeye ee dalka ka socda waxaan aad iyo aad u xusuusanahay in aysan shaksi kastoo mas-uula oo isku hormariyo dib u heshiisiin wax la yidhaahdo maantana waxaa halkaan aan ka dhadhansanayaa mudane musharaxa yani sida uu bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu dhex jiro inay u bisil dib u heshiisiinta marka sidaas laadeed maclumaha dadkaas ku burburay dagaalada ama intaas dagaalamay ay naafo badan oo badan ay halka ka dhalatay naafadaasuna aysan wax dariyaan ilaa ay haddana ay sii kordhayso oo waad la socotay dalkayga weli dagaalka u koracay wax dib u heshiisiina oo maaragtay lagu damiyaana aysan jirin qolo walbaama ay leedahay waxbaan qoorta ka jaraya qolo kalena ay leedahay waxbaan soo qabanaya oo aysan muuqanin barnaamij dib u heshiisiin maxaa kaaga qorshaysan dib u heshiisiinta dalka Soomaaliya oo annaga si gaara loo taabanaysa baclama maalintii dagaal dhacda ay naafoobayso 30 20 40 ay naafoobayso walwal iyo camal gaarana ma qorto marka naafadaas tirada badan soo kordhinaa wax u qabanaya aysan jirin hadda dada baranis ah oo kaalin ka socda dad baa CB yani waxa loo yaqaanaa dad baa lagu horeeyay ay maaragtay wax daryeelan dadka sumeysta marka walwal aad u weyn bay ugu haysaa maxaa marka kaaga qorshaysan arrimaha dib u heshiisiinta Soomaaliya assalaamu calaykum weydiiyana waageysnimo gaar warkaa mahadcelin waayo waxaa ognahay siyaasiyiintu sida badan waxay ka baqaan in saxaafadda kaas ayaa noqon doonta muddo saxda dowladda maxamed su-aashan weydiiyay adeer iyada dhibaatooyinka dheheysta hadee waa sheegay way jiraan waa wax cad waaye ilaahay markaan ka baryaynaa in dhibka ilaahay ka qaado ilaah ka suko
ummadda Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysta iyo ummadda marka waxaa u baaqayaan inay gacan siiyaan iskuulaadka kufur meelaha kufur oo laga baro ardayda mataqaan dadka baahiyaalka qaba anaha geli doonto dowladda dhisi doono dabcan gacan weyn baa siin doonaa dhibkiina ilaahay ka qaadi karo laakiin ka dowlad ahaan oo aad xaq u leedihiin xaqiina inaa heshiin ayaa mala qaadaya waana wax waajib wax leedahay wasaaradaha la dhisi doono mataqaana wasaaradda waxaa jirto oo shaqada iyo shaqaalaha waxaa jiri jirta waagi hore agaasin ahaa agaasin waxaa ka ahaan jiray qof oo dadka baahida gaarka qaba ka mid ahaan jiray qaybtaas dib aa loo furi doonaa si oo mataqaanaa dhibkaa qabtaa gaarka ah oo looga warqabo xaqiina a u heshaan hadduu ilaa ilaado waxaan salaada asna wuxuu yidhi arrinta xogaa dibushiisiinta ka hadlay dabcan mara badan waa sheegay Soomaaliya dibushiisiin fara badan waa la sameeyey gudaha iyo dibadda weli ma arkin qof idinka mid ah oo jooga meesha ka mid ah dadka mataqaanaa ka mid ah dibushiisiinta qaybta ka ah kuma jirin waxaan aaminsanahay in Soomaaliya u baahan tahay dibushiisiin dhab ah taas oo macnaheedu tahay in dibushiisiinta lagu qabto waddanka gudihiisa ee Soomaali ay hogaamiso ee Soomaali ay samayso ee Soomaali oo dhan qaybaheeda kala duwan oo idinka aad si gaara weliba mataqaanaa markhaati u noqon doontaan dhibkeedii ku dhacay waxaad ii haysta aad soo fadhiistaan ayaa aniga balaqaada doona la sameeyo taa waxay keenaysaa dadka in la iscafiyo waxay keenaysaa in dadka isu dhawaadaan waxay keenaysaa walaaltinimada inay dib u soo laabato duulaada waan qiimaad cina inaad samaysteen gola samaysteen oo golaha naafada qaranka ah oo idinka aad aawisheen oo wax fiican waaye dabcan dowladda haddii aan lii doorto waa la samayn doonaa runtii ama golo madax bannaan oo dadka baahida gaarka qaba u qaabilsan hadduu la yidhaahdo dowladdana ay gacan siin doonto hadduu la yidhaahdo arrinta gobolka banaadir waxaa ku hormarsiidoobay in waddankaana badbaadiyo qof kastoo musharaxa Soomaaliya oo wax fiican sheegaya ama ka shaqeeya nabad iyo wanaag ka sheekeynaya dabcan waa la saaxiiba waa la midooba inteena samaynta ama sharcinta waxaan ku midoobnay kow mataqaanaa in dadka Soomaalida ama waddanka Soomaaliya baahida hadda haysta waxaan ballan qaadayaa dowladda dhisi doono ee wasaaraha soo magacaabi doono iyo dowladdaba inaa arrintaas samayn doono waxaan kaloo rabaa inaan hoos ka xariiqo waxyaabaha aan sheegi doonaa baarlamaanka ka hortago sheegi doonaa waxaa ka mid ah inaan xaqiijiyo oo ballan qaado dastuurkaas noo yaalo oo iyaga ku dhaarteen oo aan wada tayna wada ixtiraamno inaan ixtiraami doono dowladii la soo dhaafay waxaa lagu arkay in markasta madaxweynaha markuu magacaabo ra-iisul wasaare oo asiga ra-isul wasaare isku dhacay sababtaas waxaa waaye dastuurka lagu dhaqmi waaye dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha shaqadiisa waxaa ku qoran ra-isul wasaare shaqadiisa la yidhaahdo aniga haddii la ii doorto ra-isul wasaare Soomaaliyeed oo wadani ah oo ka bixi kara xilkiisa ayaa soo magacaabi doonaa baarlamaanka insha Allah tacaala iyagana inay u codeeyaan ayaa rajeynaya waxaan ballan qaadayaa shaqada ra-iisul wasaaraha iyo dowladda inaan faraha ugu qaadi doono oo shaqada madaxweynimada aan ku joogi doono si waddanka aan u baxno isqabsigaan iyo meeshaan la keenay ra-isul wasaare muddo laga baxo oo ra-isul wasaarahaasna oo dowladda waddanka u horseedi doono ilaa iyo labaatanka in la helo hal qof iyo qaacid oo dowladda mar kale aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa waa ay sharafteen allah idin sharfo anaga waa socdaynaa saaxiibaan nahay walaalkiina ahay waxaana wixii